kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka channelka Xusuus u Joog Media qodobada caawa wararka aan idinku haynana oo aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dagaal xoogan oo iminka ka soconaya duleedka magaalada Kismaayo iyo faahfaahin laga helayo dagaalkaasi maamulka gobolka Banaadir oo faahfaahin ka bixiyay rag lagu toogtay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay qarax uu ku geeriyooday gudoomiyihii Nugaal ee xalay ka dhacay magaalada Garowe madaxweyne Farmaajo oo khadka telefoonka ugu tacsiyadeeyay madaxweyne Dani gudoomiyaha maxkamadda ciidamada oo dhuusamareeb u tagay sidii uu u qaadi lahaa kiiska la xiriira wiilkii maalmo ka hor lagu dilay magaaladaasi duqa Muqdisho oo amar ku bixiyay in la xiro maqaayadaha iyo hoteelada ku yaala xeebta Liido iyo dad la socday diyaaradii Ethiopian Airlines ee ka degtay Hargeysa oo laga helay caabuqa coronavirus وتحية داوديال انتاس وحي هايين اخبارات كأووا وين ورارك channelka Xusuus u Joog Media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena waxaan ka dalbanaynaa ama baan ka codsanaynaa in aad subscribe saarato gambaleelkana aad furto si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela wararka iyo barnaamijyada aynu halkan soo galino mar waliba inagala soco Xusuus u Joog Media mar kale is arag wanaagsan ku soo dhawaada qodobadaas aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan dagaal xooggan ayaa lagu soo waramayaa inuu ka soconayo qaybo kamid ah duleedka magaalada Kismaayo waxaana dagaalkaasi ka soo baxaya faahfaahin kala duwan wararkan ka helayno deegaanka Kulbiyo oo duleedka ka magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ku dagaalamayaan beelo walaala oo halkaasi wada dagaalka ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii la isku qabtay dhul daaqsin labadaasi beelood ay isku qabteen waxaana la soo sheegayaa in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan sida channelka Xusuus u Joog Media uu u soo sheegay wariyaha ee halkaasi uga soo warama waxa dagaalkaasi ku geeriyootay ilaa iyo 6 ruux oo qaarkood la sheegay in lagu gowracay mindi dadka mindida lagu gowracay ayaa tiradooda waxa lagu sheegay ilaa iyo 4 ruux waxaana wali la soo warinayaa in dagaalku uu soconayo dagaalka ayaa la sheegay inuu bilowday saacadu markii ahayd halkii iyo qadar 30 daqiiqo waxaana ilaa iyo haatan jirin cid kala dhex gashay labadaasi beelooda bil ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale dagaal aad u qaraar labadaani beelood uu ku dhex maray duleedka magaalada Kismaayo waxaana soo laablaabtay dagaalka inta badan duleedka Kismaayo ku dhex mara beelaha halkaasi wada degaa inta badan beelaha halkaasi wada degaa ayaa waxay isku qabtaan dhul daaqsin iyo arrimo kale iyadoo inta badanna aysan jirin odayaal iyo waliba sidoo kale waxgarad heshiis waara kala dhex dhiga dadka degan duleedka magaalada Kismaayo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay rag lagu toogtay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho barqanamadii maanta ayaa waxa gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ay israasaaseen kooban ku dhex martay ciidamo ka tirsan kuwa amniga dawladda federaalka iyo rag ku hubeysan bastoolado maamulka gobolka Banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay israasaaseenta dhex martay ciidanka booliiska iyo raggii hubeysnaa waxaana falka uu si gaar ah uga dhacay suuqa Khalifa ee Bakaaraha afayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo tagay halka ay ka dhacday israasaaseynta ayaa waxa uu sheegay in ciidanka amniga ay toogteen 2 ruux oo ku hubeysnaa bastoolado waxa uu sheegay afayeenka in ciidanka amniga ee ka howlgalayay suuqa Bakaaraha ay doonayeen in ay gacanta ku dhigaan rag la dilay hase yeeshee iska caabin kala kulmeen markii dambana sidaas lagu toogtay sidoo kale waxa uu Saalax Dheere tilmaamay in ciidanka amniga uu dhaawac ka soo gaaray hal askari haatan lagu dabiibayo xarun caafimaad sidoo kalena israasaaseynta uu ku dhintay qof shacab ah oo kamid ahaa dadkii ganacsiga ku lahaa halka uu falku ka dhacayay ugu dambeyntii afayeenka gobolka Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa sheegay in ragga la toogtay ahaayeen kuwa kal hore falal amni darro ka geystay halkaasi isla markaasna ay ku raad joogeen laamaha amniga isagoo u mahad celiyay ciidankii fuliyay howlgalkaasi dhinaca kalena waxa markaasi wararkii ugu dambeeyay laga helayaa qarax uu ku geeriyooday gudoomiyihii gobolka Nugaal ee markaasi xalay ka dhacay bartamaha magaalada Garowe ee maamulka Puntland waxa xalay abaara 7 fiidnimo mar qura magaalada Garowe laga maqlay joogta qarax culus kaasi oo lala beegsaday gaari ay la socdeen gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi iyo taliyihii hore ee booliiska gobolkaasi Faarax Golongoli qaraxa oo ahaa ismiidaamin ayaa qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa waxa uu isku qarxiyay gaariga ay la socdeen mas'uuliyiintan meel u dhow saldhigga Garowe waxaana qaraxaasi uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac
gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi oo markii hore ku dhaawacmay qaraxa ayaa waqti kadib ku geeriyooday gudaha cisbitaalka ku yaala magaalada Garowe waxaana dhaawac culus uu sidoo kale qaraxaasi ka soo gaaray taliyihii hore ee booliiska gobolka Nugaal Faarax Golongole. wararka qaar ayaa sheegaya inay jiraan dhaawac soo gaaray dad shacab ah inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray dadka rayidka ah. taliyaha booliiska Puntland Muxyidiin Axmed Muuse oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in qofka isqarxiyay ay ku raad joogeen isla markaana ay haatan wadaan baaritaano kala duwan kuwaasi oo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyay qaraxaasi. baraha lagu taageero al-shabaab ayaa waxa ay ku sheegteen in qaraxii xalay ka dhacay magaalada Garowe ay iyagu ka dambeeyeen isla markaana ay halkaasi ku dileen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland. war qoraal ah oo ka soo kala baxay madaxtooyada Soomaaliya iyo Puntland ayaa waxa lagu cambaareeyay qaraxaasi waxaana sidoo kale looga tacsiyeeyay geerida gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi. isla wararkaas ayaynu ku guda jirnay madaxweynaha Soomaaliya ayaa khadka taleefanka waxa uu ugu tacsiyeeyay madaxweynaha maamulka Puntland. madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo xalay khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa xukuumadda iyo shacabka Puntland uga tacsiyeeyay geeridii ku timid Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi Guujir oo u geeriyooday qarax fiidnimadii xalay lagula eegtay afaafka hore ee saldhigga caasimadda Garowe. qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa lagu sheegay in madaxtooyada Soomaaliya ay ka tacsiyeynayso geerida xanuunka leh ee gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi oo u geeriyooday qaraxii fiidnimadii xalay lagula beegsaday saldhigga magaalada Garowe kadib qof nafti halliga ah uu isku miidaamiyay gudoomiye Guujir iyo gaashaanle sare Faarax Golongole. dhinaca kalena gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ayaa Dhuusamareeb u tagay sidii uu qaadi lahaa kiiska la xiriira wiilkii maalmo ka hor lagu dilay magaaladaasi. wafdiga gudoomiye Shoote ayaa waxa kamid ah saraakiisha xeer ilaalinta ciidamada iyo xubno kale uu kamid yahay senator Yuusuf Geelle ugaas dhagay waxaana garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug. ujeedka gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida u tagay caasimadda Galmudug ayaa ah sidii maxkamadda ay u qaadi lahayd kiisas dhowr ah oo ka kala dhacay deegaanada Galmudug iyo gobolka Hiiraan. maxkamadda ayaa waxa lagu wadaa in markaasi maanta oo Isniina ay bilowdo dhageysiga kiiska dilka maalmo ka hor magaalada Dhuusamareeb lagu geystay Shaafici Xaaji Diiri oo ahaa wiil dhalinyaro ah kaasi oo uu toogasho u geystay askari kamid ahaa ilaalada senator Dhagay. saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa la filayaa inay fuliyaan xukunno hore loogu riday rag ku xukumnaa dilal ay geysteen oo markaasi ku jira xabsiyada deegaanada Galmudug. waa tahay daawadayaal wali waxa daawanaysaan warka janalka Xusuus Ujoog Media. markaana duqa Muqdisho waxa uu amar ku bixiyay in la xiro maqaayadaha iyo hoteelada ku yaala xeebta Lido. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa gudoomiyay shir toddobaadle ah ee maamulada degmooyinka kaas oo diiradda lagu saaray ka hortagga iyo xakameynta cudurrada sida fudud ku faafa ee loo yaqaan coronavirus. shirka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxa ka soo baxay go'aano lagula dagaalamayo fidista cudurkaasi oo farabaan ku haya caalamka oo ay Soomaaliya qayb ka tahay. gudoomiye Cumar Filish ayaa ku amray gudoomiyaasha maamulada degmooyinka iyo saraakiisha hay'adaha amniga in la joojiyo dhammaan isu imaatinada dadweynaha gaar ahaan hoteelada iyo maqaayadaha lagu kulmo ee ku yaala xeebta Lido. sidoo kale waxa uu ugu baaqay shacabka Muqdisho inay muujiyaan taxadar iyo feejignaan dheeri ah si looga fogaado faafitaanka xanuunka coronavirus. caabuqa corona oo markii hore ka soo bilowday Shiinaha ayaa ku fiday caalamka waxaana dawladda federaalka ay xaqiijisay ilaa iyo 3 kiis oo la xiriira xanuunkaasi. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo kaashanaysa hay'adaha kale ee dawladda ayaa haatan wada qorshayaal guud oo looga hortagayo faafista cudurka dilaaga ah ee coronavirus. ugu dambeyntiina dad la socday diyaaradii Ethiopian Airlines ee ka digtay Hargeysa ayaa la sheegay in laga helay coronavirus. 4 qof oo kamid ah dadkii dhowaan ay diyaaradda Ethiopian Airlines ka dejisay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa laga helay cudurka dunida ku faafaya ee COVID-19. 4 qof oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Djibouti ayaa iyagu ka soo degay madaarka Hargeysa
kadibna uga sii gudbay xuduudda dhulka ee dowladda Jabuuti la wadaagto Somaliland gaar ahaan Lowyacaddo sida ay xaqiijisay dowladda Jabuuti. Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa hore u shaacisay inay xayiraad ku soo rogtay duulimaadyadii caalamiga ahaa, midaasi oo kaliftay in dadkaasi ay ka soo degaan madaarka Hargeysa kadibna ay Jabuuti ka galaan xuduudda dhuleed ee ay wadaagaan Somaliland iyo Jabuuti. Jabuuti ayaa sheegtay afartaasi qof in laga helay coronavirus kadib markii baaritaan lagu sameeyay xilli ay isku dayayeen inay xuduudda Lowyacaddo uga sii gudbaan dalka Jabuuti. Arrintan ay shaacisay dowladda Jabuuti ayaa sii laba jibaaraysa cabsida baahsan ee laga qabay dadka la socda diyaaradda Ethiopian Airlines oo duulimaadyadeeda caadiga ah ku timaada madaarka Hargeysa, midaasi oo suurtagal ka dhigaysa in Somaliland ay noqoto xarunta fayruskaasi ee deegaanada Soomaalida. Xukuumadda Muuse Biixi ayaa hore u fasaxday dad u karantiilnaa iyada oo ku sii daysay damaanad sida ay xog ku heshay ee warbaahinta, kuwaas oo ka soo deganayay madaarkeeda isla markaana looga shakisanaa inay qabaan xanuunka COVID-19. guud ahaan wararkii oo aad ka daawanayseen channelka Xusuus Ujoog Media intaas ay ku dhanyihiin caawa daawadayaal. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaaladan halkan soo gelino. haddii aad ku cusub tahay channelkana waxaan mar kale ka dalbanaynaa inaad subscribe saarto, gambaleelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela macluumaadka aan halkan soo gelino. sidoo kale muuqaalkan la sii wadaag saaxiibadaada kale.